tuuga ayaa wuxuu u dhacay islaan waayeelah guri ay deganeed kadibna wuxuu arkay iyada oo soo jeeda wuxuuna ku yiri maxaad xilligan oo saq dhaxay habeen la soo jeedaa islaanti way garatay inuu tuug yahay kadibna waxay ku tiri wiilkaygiyow waxaad iileegtahay qof wanaagsan oo daruuftu ay ku kaliftay tuugnimada waxaan oo dahab ayaan haystaa qaado laakiin intaadan bixin ka hor waxaan rabay riyo aan ku riyooday oo argagax leh inaad ii fasirtid haddii aad taqaanid tuugii wuxuu is yidhi islaan doqon ayay u eg tahay bal ka dhegayso kadibna waxaada ka qaado warkii u bilowday oo waxay tidhi waxaan ku riyooday anigoo webi biyo badan dhinaciisa socda kadibna aan simbiri raxday waxaana ku dhacay webigii waxaana kadib idhi cabdixakiinow iga soo gaar cabdixakiinow iga soo gaar si cod dheer leh ayay qaybtii dambe u tiri kadibna tuugiya wuxuu yidhi kumuu ahaa cabdixakiinkaas aad u qaylinaysay isla markiiba qolkii ay ku wada hadlayeen waxaa soo galay wiil ay islaantii dhashay oo cabdixakiin la yidhaah oo xoog badan wuxuuna bilaabay inuu tuugii garaaco islaantii waayeelkaheed waxay tidhi bes intaasaa ku filane yuusan nagu dhiman iska daa tuugiyaa soo hadlay oo wuxuu yidhi si fiican ii garaac anigaaba qaldanaa ma inaan riyo fasiro ayaan u imid mise inaan waxado